dartay noloshayda galada sugayniyo waqtigii wayna soo galaye galada sugayniyo waqtigii wayna soo galaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waligo Bilal Mustafa Tahira alle Soomaalida meel kastoo joogto aad bay salaamaya baxgayo Itaaliya iyada Palermo ee digala soo hadlaya mawduucayga maanta wuxuu ku saabsan yahay la hadla dhalinyarada reer Soomaaliland meel kastoo ay joogtaan anigoo ku hadlaya magaca reer Sheekh Muuse meel kastoo aan ka joogaa dunida afeega reer Sheekh Muuse waxaan leeyahay masha Allah maanta waxaynu qaadnay badbadii ugu fiicneed waxa wanaagsanina waa cunto waxa ka fiican inaad sharaftaada raadsato sharaftaadana waxaad ku raadsanaysaa adigoo laga gardaran yahay adigoo laga dhibayo adoo waxyaalo badan u jeeda intaad indhaha ka xigato inaad dhinac kale ka marto waxyaalaha maanta ku kalifay inaynu waxyaalo badan aynu burino waxyaalo badan ka hor imano haweeney 40 sano la soo dhaafay reer Sheekh Muuse waxaynu ku soo jirnaa waxa weeyaan taahiya tawaadu meel ma gaarsiiso imikada xukuumaddu waxaan ka codsanay xisbiyada labada xisbi wadani iyo waxa weeyaan duucidba waxaan ka codsanay wandhikaad ku aragtaan magaalada Somaliland magaalo kamid ah Somaliland cafwan oo ka dhex sheegta haybso iyo tiro badnaan 10 sano xariga xira way wuxuu qofkaasi aaminsan yahay in laga tiro badan waxa ma qabsan karo challenge ka galaa wanaagsan xitaa hadduu musadariyay inankayga xataa adduunya walaalkay amba adeerkay adduunya in la xidhaa khayr badan waayo umadiina waynu dhibaynaayo waxa weeyaan inankiina waynu is dhiban umadiina aan leenahayna waxa weeyaan noocan bay nagu sameeyaan caynka bay nagu sameeyaan tusaale ahaan dadka qaar fikirkoodan u raacaya hadalkaa waxaan meesha u leeyahay dadka qaar baan qabaa inay fikirkooda u raacdo qof wax buu aaminsan yahay dadka nolol nahayna waynu dhibaynaa inankiina waynu is dhiban markaad leedahay sidan baa lagu sameynaya go'aan baa la gaadhaayo waxa weeyaan meel baa la istaagaa laakiin sidan baad ugu sameynaysaa bariisna waan kula cunayaa sidan baad ugu sameynaysaa meelihii madaxtooyadii meelihii kalena waan taaganahay sidan baad ugu sameynaysaa waa kuu qoslayaa sidan baad ugu sameynaysaa no reer Sheekh Muuse taa waa diiday annagu haddaanu reer Sheekh Muuse nahay ilmaha ayagana ku kori mayno inaanu dhahno dadkaasa waxaa idigu sameeyey dadyowga alban weshin baa saa idigu sameeyey gudub ilmaha ayaga u sameeyey waraa iska bilaabay ilmaha ayaga ka bilaabay haddaanu reer Sheekh Muuse war haddaanu 10 sano muxuu yahay haddaanu reer Sheekh Muuse 10 sano haddaanu dadka ka tilmaamay oo dadyowga kale xataa waxna la wadaaga loo dhiibo anoo shacabkan la tuman haddaanu reer Sheekh Muuse hadafkaygu waxa weeyaan inaan isirkayaga iyo magacayaga ay wax walba nagala weyn saaka madaxweynaha oo laga dhigay reer Sheekh Muuse waxa nagala qiimo badan inaanu badbaadinay isirkayaga iyo magacayaga inaanu ku faano taasaanu ka midaysannahay rag iyo dumarba macna noo tari mayso waxa weeye 2 sano iyo 4 sano wasiir ahaan faa'iidana inta dalku dhisan yahayba waxa weeye ma ha yaraato ha badnaatay dawoon ku leenay dhibaankayga ilaa xilligaa fuuray maalinta Somaliland la taagay dan reer Sheekh Muuse wali xilligaa u haya annaka baan isku bedelnay waa xeerka Somaliland ma garatay waa taasaana ku tusinaysa dalka inaan leenahay dhalanay taasaana ku tusinaysa dalka in la jecel fara badan naga hayso taasaana ku tusinaysa Hargeysa ay Sheekh Muuse oo farta taagno oo noqoto xataa inaan wax ku dili karno ciday doonto hadaa qabiilka doontaa noqdo reer Sheekh Muuse inaan wax ku dili karno waxna ku fuuli karno waxna u hiilin karno waxna aanu ka deegi karno kana aamusi karno kana hadli karno waayo dadka u dhashaan dadka diidda iyo waxa weeyaan dhirtu u hiilisaan reer Sheekh Muuse waxaan wala socdaa marka dhalinyarada reer Sheekh Muuse ee maanta wax bartay mid bay iga digaya hayaadka اللهم صل على محمد وحيالها برنامجيدا wadaan aqoontaad barateen laakiin ha u isticmaalina dadka qaar waliba reer Sheekh Muuse haan jiray ma jecel hadaan cid duraya hadaan dadka yan duraa ma garat hadaan cid wax ka sheegay reer Sheekh Muuse wax ka sheegay hadaan cid amaanay reer Sheekh Muuse amaana umadaha kale sida caadigeed ee limiyo xishood baan wax way u xishmeena ma garat si dad badan u isticmaali jiray si khaldan reer Sheekh Muuse ahaan ha u isticmaalna dhalinyarada maanta wax barato
waxaad u isticmaashaan wixii sax kuu noqdana sax, wixii khalad kuu soo baxana ka leex. dadka kaa cilmiga badan wax weydii ee dalka kula jooga ee cid walba ah ee reer Somaliland wax weydii. haddaad NGO furato maanta ambaad hay'ado furato, hay'adaadu inaynan u shaqayn dadkaaga keliya, waa inay ummadda kalena u shaqaysaa. Somaliland dad badan oo aan dadkan cabaada amba tabaaduca amba mar walba ka sheekeeya tira yari iyo tamar yari iyo taagdari ka sheekeeya. waxaad aragtay bulsho dhan oo waxa weeye waxay cunaan way haystaan, way kalahaan, sida wax loo fulo way yaqaanaan, sida wax loo dhalo way yaqaanaan, sida wax loo waxa weeyaan haysto way yaqaanaan, waxyaalo fara badan sida wax loo dhaqday yaqaanaan. haddana waxay aaminsan yihiin noloshoodii waa kuwa maareeyey, noloshoodii hadda way maareeyeen. haddana waxay aaminsan yihiin dalkay ku nool inay yidhahaan waxa weeye waxyaalahaas ay naga iibiyaan, ay waxaa dadka ugu sheekeeyaan. waxbaa maxaad u dhashay, maxaad u tarantay, maxaad gurigaaga habeenkii dad subaxii shaqo tagto ugu soo noqonaysa adigoo bad qaba. haddaa waxa weeyaan faquuq iyo balaayo cudur lagu hayo, laguma haya, adigaa isku haya. shaksi kasta waxaa aaminsan cudurnimo iyo waxa weeyaan naxli iyo dadaa isku haya. waa dadkii hore waxba may baran jirin, markay iskuulka tagaan laba kelmadood lagu dhaho waxba may baran jirin. dadkayga maanta wax bartay waa dad ka ficil celiyey. marka la caayay bay caaytameen, marka la yidhi sidan baa tihiin oo laisli yasa ayaguna way fal celiyeen. marka qacan loo qaaday bay qacan qaadeen. dadkaas sidaas wax ku barteen. hadhow tolo macallinkii oo loo imanaya, inankaygi islaam baa iska dhasay doonto waxa weeyaan inankaygi inay reerahaas islaayeen, macallinka laba noqonaya dadday islaayeenna iyo macallinka yara raaca. nacam dadkani waxa weeyaan imika wax bartay waxyaalo fara badan bay soo mareen. dad si sahlan wax ku bartay maaha. ciidahay doonaan ha noqdaan, laakiin dadka waxyoogaa sheegtaa ciday doonaan ha noqdaan. si yar adeer waxba kumaad baran. haddaad isleedahay si yar baad wax ku baratay, si adag baad wax ku baratay, adoo si adag wax ku bartay inaad si jilicsan u hadashaa waa khalad weeyaan. ma garata? inaad si jilicsan u hadashaa khalad weeyaan adeer, si khaldan weeyaan. ma garatay? yaroo dee waxaa ka soo dhaanteeya maqaaxiya. markaad wax soo bartay, ilmaha kugu dayanaya ee aaminsan inuu sida hebeloo kala noqo amba sida heblaayo kala noqo, ilmaha tusaalaha u tahay. markuu arko mikrofon adigoo qaatay oo ooyaya amba tawaaducaya amba calaacalaya, muxuu isdhahaya kii kaa horeeyay kaa waxa weeyaan wax soo bartay masterkii digiga watay amba aqoon-yahanka ahaa waa ka noocaa ku hadlayo isdhahaya. ma garatay reer Sheekh Musow? okay, kii kaa dambeeyna hadhow tolo wax isdhahaya down, qalbigiisu waa ka dhacaya. isla hadhow tolo isaguna hadhow tolo marka meel looga yeedho waddadii aad jeexday weyn miyay raacaya. marka waxaynu maanta ka dagaalamaynaa reer Sheekh Musow, idinku fahma inayd fahantaan baan anu iigu talagalay. macna ma samaynayso inaynu soo sheegano, waynu soo sheegan jirnay. dad baa waxay soo sheegan jireen magacyadan caadiga ah ee dadka lagu caayo ayaynu soo sheegan jirnay. anigan baa soo sheegan jiray, wax kastaynu soo wadnay, laakiin marxalad baynu ka soo baxaynay. wixii maanta waynu ka soo baxnay, waxbaan baranay, dhaqaalihii dee intii maanta nin walba waxbuu haystaa, qurbuu joogaa, ka kale dadka waa iska shaqaysanaya, ha yaraato ha badnaato. waxbaan fahanay, aqoon baan baranay, waxbaan yeelanay. ma garatay reer Sheekh Musow? marka inay maanta iska tuurno waa muhiim, waana ta u fiican. aynu bartaa kaga kacnaana waa muhiim. kaa reer Sheekh Musow aad baa idii salaadaya. reer Somaliland waxaan leeyahay warniyow ha laga waantoogo qabyaaladan iyo qurunkan iyo qadiyadan iyo waxyaalahan iyo xumaantan. iyadii baa waxa weeyaan Somaliland markuu maanta dhinac isku jiidanaysay, laakiin bal ha la fikiro. reer Sheekh Musow aadna waa idii salaamayaa. caqligiinuna ha shaqeeyo, gobonimadiinu ha shaqayso, sharaftiinu ha shaqayso, walaalnimadiinu ha shaqayso. ma garatay? waxaan dhinacan aada uga salaamayaa odayaasha reer Sheekh Muuse, suldaan maxamed ismaaciil ugu horeeyo. maasha allah, iyagoo imika ka hadasho social media. markuu xigo guddoomiyaha guud Rashiid Cabdilaahi Gaas, guddoomiyaha guurtiga. waxa weeye allahuma salli ala keliya maal, waxa weeyaan Mustafa Dhimbiil, waxa weeyaan Nuur, waxa weeyaan Dhimbiil. maasha allah, deebaata wax badan baa kacay. waxaan kaloo aad uga hambaleynayaa dalka nimanka ka halgamay marka ugu horeyso uu hormuud ka yahay Sheekh Abu Sufyaan Maxamed Muuse Nuur iyo dhalinyarada qiimaha badan ee reer Sheekh Muuse, kuwa qurba joogta ah
kuwo kale oo adduunka oo dhan kala jooga bari iyo koonfur iyo galbeed iyo waqooyiba reer sheekh muuse adduunyada meel kasta ay ka joogaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin si fiican bay wax u socdaan innaga waxaa laynaga rabaa uun hal mid un baa laydiga rabaa adduunyo laydigama rabo waxaa weeyaan rag baa wax badan ka baaraan degay rag baa wax badan waxa weeyaan raba inay wax weyn ka mindhaliyaan idiga waxaa laydiga rabaa hal qalbi un baa laydiga rabaa haddaad tahay qof reer sheekh muuse amba dumar amba gabadh oo xalaal ku dhashay oo reer sheekh muuse oo biyihii reer sheekh muuse ah adeer waxaa lagaa rabaa khayr allaha ku siiya hal mid baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa qalbigaagu inuu mid noqdo hal mid wal mid aad baa idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu